guulaysato xisbiga waddani ha guulaysto aad iyo aad baa umahadsantihiin maadaama shucuurta dadku ay aad u sarrayso adeeduna kulushahay maanta aniga metelaya dhammaan xildhibaanadii iyo khudbadahoodii walaalayaal shacbiga aan la qiyaasi karin tiradiisa ee halkan isugu yimi oo taageerayaashii musharaxiinta xisbiga waddani waxaad muujiseen taageerada iyo rabitaanka u haysaan xisbiga waddani xisbiga rajada shacbiga Soomaaliland walaalayaal in doorashadu inoo qabsoonto xisbiga waddani iyo anigoo ah guddoomiyaha xisbiga waddani waxaannu gelinay tacab badan waxaannu u dulqaadannay waxyaabo badan oo loo dulqaateen waxaannu muujinnay sabir waxaannu muujinnay dulqaad si doorashadu inoogu qabsoonto waxaan u mahadnaqayaa dhammaan daneeyayaasha doorashada oo ay ugu horreeyaan axsaabta qaranka komishinka doorashooyinka beesha caalamka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay in doorashadu inoo qabsoonto maanta waxaynu soo gaadhnay oo aynu u dareeraynaa in doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland inoo qabsoomaan 13 May lama aqbali karo wax kasta oo xumaynaya in doorashadu si nabad ay noogu qabsoonto waxaan si adag u cambaaraynayaa falkii fulaynimada ahaa ee lagu rasaaseeyey xafiisyada axsaabta mucaaridka ah ee waddani iyo wixii magaalada Laascaanood walla aqbali karana maaha waxaynu doonaynaa inay noo qabsoonto doorasho xor oo xalaala walaalayaal maanta shacbiga Soomaaliland wuxuu haystaa fursad weyn aad ii dhegaysta shacbiga Soomaaliland maanta wuxuu haystaa fursad weyn fursaddaasi waxa weeye doorashooyinka sidoodana waxaa looga jeedaa in awoodda loo soo celiyo shacbiga markaa maanta awoodda idinkaa leh waa awood ku leedihin siyaasiga aad dooratay shalay ee waajibkiisa garan waayey inaad codkiina ku beddeshaan qorshaas ma aha ama madaxweyne ha ahaado ama golo baarlamaan ha ahaado ama golo deegaan ha ahaado waxaa la yaab leh in kulmiya yidhaahdo mar saddexaad baan doonayaa inay doorataan kaftanka reraha waxaan u daynayaa Muuse iyo Faysal laakiin kaftaya oo kale ku kabaya oo inoo muujin doonaa kulmiye reerkiisa way garanayaan intii soo gaadhay intii kalena waa looga sheekeeyey kullayba waxaa Hargeysa joogi jiray nin xikmad badan oo majaajiliista oo la odhan jiray Cunaaye dabeedna wuu xayeysiiyey inuu riwaayad dhigayo riwaayaddii tigidhadii waa la boobay waa la galay markuu stagekii yimi wuxuu way garanaysaan oo Cunaayaan ahay way ka buuyi wuu baxay haddana wuu soo noqday mar labaad stagekii wuxuu haddana way kan mar saddexaad buu soo noqdo wuxuu yidhi haddana way kan riwaayaddina way noo dhammaatay haddaa ii bogteen habeen dambe yaa tigidhadu idinka dhammaan kulmiye wuxuyna leeyahay
وأوتيهن إلى وحبا قبا وأوتيهن كلمية وفلية وأوتيهن ولا كلمية وفلية وأوتيهن إلى أنا وحبا قبا وأوتيهن من الليل عاصمة هرقيسين وحشيش كبوكو توسي أسمع وبين اللي وضويك هرقيسين ويش الشبيه هذا أنا وحو اللي هذا أنا ويك مرصدحات بحاتي نادين إذا المغلب ما هي بحاتي نادين ليلي مينو ليلي مينو ليلي مينو ليلي مينو والله يا وها شعبي في سوماليلاند وهو باغيا إلى إنه قد كسينه ذلك إنه كنت يسنهي إلى يسجد الكلمات الرمضو تاني الكلام حسبي وطني وحو كل سوية الله يرجع ويجي صوت لي إليه تطفلا وعلمه ورويه وتدروا يا رجع وتدروا اللي يروح برتي وتدخل كسار لها أبن شوي كعب الإنسان كل الدول استلفوا ترى ضبطت تركوا حقا من الهاوي وعنو ما تغيّا دمان وشرحين تقولها وكيل هذا